wanted to ask you also some of the things that it seems normal to you. waxaan rabaa inaan ku weydiiyo sidoo kale waxyaalaha qaar marka lagu fiiriyo adiga agtaada caadi ka ah balse mararka qaarna yaab gelisa markaad ka jawaabayso su'aalaha qaar waxaad soo qaadataa ama aad soo daliilsataa aayadaha qur-aanka sidaad sheegtayna qur-aanka ma wada xaafidsanid aniga xaafidul quraan maahi. haa sidee kuugu soo dhacaan sidee ku soo xasuusataa aayadaha soo idin How do you remember all those ayat? ugu horeyn waxaa soo idil waa kaalmeynta allah. allah wuxuu ku leeyahay suurata ali cimraan suuradda 3 aayad 160 hadduu ilaahay idiin gargaaro wax idinka adkaan karaa ma jiraan hadduu allah idin hoojiyana kumaa idiin gargaaraya gadaashiisa allah uun ha tala saarteen mu'miniinta. taa waa midda koobaad. midda labaad allah wuxuu ku leeyahay suuratul cankabuut suuradda 29 aayadda 69 kuwa u jihaaday darteenna waxaanu ku hanuuninaynaa jidkanaga. tan xigta waa fariinta waa in la adkaysto dadaalna la bixiyo qof kastoo adkaysta allah wuxuu u ballan qaaday inuu wadada u fududeeyo haddii aadan ku guulaysan ilaahay dembi kuma laha midaas maxaa yeelay uma aadan adkaysan sidii loo baahnaa. tan saddexaad allah wuxuu ku leeyahay suuratul anbiyaa suuradda 21 aayadda 7 fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun yacni haddii aadan garanayn weydii qofka garanaya. nuqdadaas saddexaad marka waxay ka hadlaysaa wadadan dacwad u marayno. saddexdan arrimood waa asaaska barnaamij dacwadeedka aan raacayno. dadku way weydiinayaan waa maxay manhajkii wadada la raacay. waxaan ku leeyahay ugu horreyn i weydiiya sidee baan kaalmaha allah ku helaynaa waa midda ugu muhiimsan midda ah. kadibna waa adkaysiga wadadii la qaadi lahaa marka saddexaad ayay imaanaysaa. markaan u laabano mawduuca qur-aanka aniga qur-aanka oo dhan ma wada xifdin balse markaan muxaadaro u socdo in badan waan dadaalaa nafteyda ayaan diyaariyaa baaritaano ayaan sameeyaa waxaana aad u doorbidaya oon jeclahay inaan muxaadaradeeda xifdiyo. markaan arrintaas samaynayo dhammaan aayadaha aan xifdinayo waxay iga kaalmaynayaan inaan su'aalaha ka jawaabo. haddii aysan muxaadarada ahayn muxaadaro kale ayay iga saacidaysaa. nafteena ayaan diyaarinaynaa sidaan hore kuugu sheegaba. haddii mawduuca muxaadarada yahay tusaale ahaan xuquuqda haweeneyda ee diinta islaamka waxaan isku dayaa inaan akhriyo dhammaan aayadaha qur-aanka ee xiriirka la leh mawduucaas. waxaan isku dayaa inaan dhegaysto hadallada dad kale oo khudbooyin jeediya iyo su'aalihii la weydiiyeyba. sidaa darteed macluumaad badan ayaan isku keenayaa. ku dhowaad waxaan soo kulminayaa 200 oo su'aalood oo ku saabsan mawduuca haweeneyda. kadib jawaabaha su'aalahaasi ayaan diyaarinayaa anigoo aayadahana soo qaadanaya kadibna xifdinaya. haddaba waa hawl adag oo u baahan qaab loo xifdiyo nambarada aayadaha. ina rumayso ardaydeyda howl aniga midaan qabto ka wanaagsan ayay qabtaan in badan. wiilkayga maasha allah qur-aanka waa uu xifdiyey waxuu ku hadlaa weliba luuqadda carabiga oo fasiixa ah aniga laakiin carabi ma garanayo oo kuma hadlo xitaa ingiliishka qaab wanaagsan uguma hadlo. wiilku wuxuu akhrin karaa qur-aanka kasoo bilow faatixa ilaa suuratu naas weliba si degdeg ah. aniguna waan ogahay in luuqadda carabigu tahay luuqadda ugu muhiimsan ee caalamka. inaan barto ayaan isku dayaa ilaahayna wuxuu iga waafajiyaa qayb yar laga yaabee taa inay doonista ilaahay tahay laakiin dhammaan ilmahayga ha ahaadaan gabdhahayga labada ah ama wiilkayga maasha allah luuqadda carabiga ee fasiixa ayay ku hadlaan. dhammaan arrintaasi waa kaalmaha ilaahay. waxaana u sheegaa ardadeyda mar waliba si kastoo habkiinu yahay iyo dadaalka aad bixinaysaan si kastuu yahay haddii ilaahay idin kaalmaynin wax faa'iidaa ma laha. sidoo kale haddii qofka daaciga uu ku sifaysan yahay nicmada rumaynta allah subxaanahu wa tacaala run ahaantii ilaahay wuu kaalmaynayaa. allahna waa asaaska nicmo weliba dartiis ayaanu u halgamaynaa.